geelle iyo saamaynta mataqaanaa waxa weeye al-shabaabka iyo qaraxyada cidda wadda iyo mataqaanaa iyo dalkeena uu ku leeyahay iyo asaga laftirkiisa oo tiisi hadda mataqaanaa waxa weeye godkii biyo ugu soo galeen iyo dambiyadii uu Soomaaliya iyo caalamka iyo reer Jabuuti uu ka galayay oo maanta asaga mataqaanaa waxa weeye gondaha soo fariisatay warar badan baa leeyahay soo dhawaada fadlan qof walba ka qayb qaado difaaca dalkaaga dee lagu sheegay laynii sheegi mayo qof walba aadan dalkaaga aadan difaacan oo cadawga aadan halkaas mataqaanaa social media-hu waa waxyaabaha nuclear-ka anagu aan haysano waa social media nuclear haday Japan iyo Mareykan iyo Mareykan iyo Russia iyo nuclear iyo China ay ku faanayaan inagu mataqaanaa nuclear-ka iyo pumpkeenu waa social media marka qaybtaada qaado difaaca dalkaaga ogow askari baa tahay sirdoon baa tahay taliya tahay mataqaanaa dalkaaga umbaad mataqaanaa wax way difaacanaysaa deeqo wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxa ilaahay mataqaanaa waxa way uga baryaynaa in uu u naxariisto naxariistiisa uu mataqaanaa waxa weeye uu ku manaysto naxariistiisa uu geliyo walaalihii Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay ee macnaha ku dhintay iyo intii ku dhaawacantay magaalada Boosaaso ilaahay waxaan leenahay intii dhimatay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto waxaan kaloo si la mid ah ugu tacsiyaynaynaa walaalihii ku dhintay magaalada Beledweyne ilaahay waxaan leenahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un intii dhaawacantayna ilaahay mataqaanaa ha caafiyo walaalayaal saad la socotaanba dalkeena xaalado mataqaanaa waxa weeye iska adag baa inta badan ka jirta siiba mataqaanaa meelaha ay waxa weeye kooxaha Aranjan ay haystaan shalay saad arkayseen waxa hadlay odayaal mataqaanaa waxa weeye ka soo jeeda beesha Warsangeli gaar ahaan beesha mataqaanaa leeyahay Dubays dadka mataqaanaa Boosaaso degan qabiilada mataqaanaa qabiilooyinka Boosaaso degan kamid ah waxaan ognahay Aranjan ama mataqaanaa Deni iyo teamkiisu kuraastii Puntland taalay inay ayagu qofkay rabaan ay keensadeen kii ay mataqaanaa ayagu aysan rabinina inay cayriyeen taas oo baalmarsan habraacyadii iyo heshiiskii bulsho ee 17 September la gaaray oo ahayd in loo daayo odayaal dhaqameedyada inay soo xulaan 101 qof inay oo beesha mataqaan kursiga iskale ay soo doorato cad ayay mataqaanaa u baalmareen qofkii ay rabaanna way cayriyeen midkii ayagu ay rabaan waxay rabaan dadka ay meesha imaanayo dhan inay noqdaan dad ayagu ay soo xusheen kuwa Deni wasiiro u ahaa kuwa Deni agaasimayaal u ahaa kuwa mataqaanaa abti u yahay kuwa mataqaanaa waxa weeye gabar ayaga mataqaanaa qaraabo u leeyahay si mataqaan dhow iyo si kastaba ha noqotee dad Deni iyo Aranjan ay wataan waxaan ahayn meesha inay yimaadaan waa la diiday waa la marsaday mataqaanaa waad arkayseen waa dad badan baa ka hadlay Sheekh Cabdi mataqaanaa waxa weeye xirsi ilaahay khayr hasiyo si fiican buu uga hadlay waad ogtihiin qabaa'iladii waa la marsaday dhulbahanta la marsaday Carab Saalax baa la marsaday Leelkasa la marsaday Cali Salebaan baa la marsaday waxa weeye waa Cali Salebaan waa loo soo socdaa wali waxa la marsaday mataqaanaa waxa weeye awrtabla la marsaday adiga you name it mataqaanaa marka laga reebo waxa weeye sida mataqaanaa beesha Maxamuud Salebaan marka laga reebo kuraastoodii dadka intooda kale iyo kuraasta hadda Boosaaso taala maahane intoodii badnay dadka waa la marsada soo garanaysaan waa la marsaday dad ayagu mataqaanaa ay wataan oo Aranjan ay wataan baa meesha la keenay laakiin nimanka Maxamuud Salebaan waa niman laan dheera ah boqorka kuraastiisa cidna kuma ordi karto islaamka mataqaanaa laguma ordi karo kan mataqaanaa garow jooga kuraastiisa mataqaanaa wax way laguma yaaci karo waxay dhaheen waranaga waxyaga yaa waa si hadalku been ma ahan ma wax jira moogtaha dadkii kale oo la rabay in la marsado Warsangeli waa qayliyeen waliba mataqaanaa Dubays waa qayliyeen waxay wateen Jamaal waxaan ognahay Leelkasa in la diray oo wasiirkii mataqaanaa duulista hawada in waxa weeye loo badiiday xitaa inuu la kulmo oo warqadaha aqoonsiga mataqaanaa ay ka gudoomaan ama guddigii doorashada ee heer federaal iyo heer mataqaanaa deegaan inay arkaanba xitaa waa loo diiday waxa kuma arkayno waana qofka muwaadinka ah xaq wuxuu u leeyahay in la doorto waxna uu doorto mataqaanaa waxa warqadiisa aqoonsiga laga gudoomo xuquuq buu leeyahay cid ka qaadi karta xuquuqdaasi oo si sharci uga qaadi karta power abuse baa ka jira Puntland power abuse baa ka jira roob la wuu fiirsanaya guddiga doorashooyinku way fiirsanayaan soo garan maysid guddiga doorashooyinku waxba kama dhihi karo roob le wuxuu baadi karaa ama wax ka dhihi karaa reexamar uu baadi karaa yaa reexamar wax ka dhihi karaan xamar buu roob la baadi karaa xamar ayuu mataqaanaa la baadi karaa laakiin Deni waxa uu samaynayo waxba lagama dhihi karo warka inaynu ku daaliye marba nimankii Dubays waxay dhaheen annagu kursiga yaga Jamaal waa ku dhimanaynaa odayaashii baa shala hadlay shir jaraa'id bay qabteen
waxay dhaheen kuraastayada waa ku baaba'aynaa kursigayaga waa ku dhimanaynaa waxa rabaa inaan inii sheego waxa cararay oo lacag inta la siiyey la yiri carar suldaankii mataqaanaa beesha Dubays waa uu carara wuxuu aaday burco iyo hargeysa iyo halkaas laga sheegayay Dubays shala waa shireen mataqaanaa hotel bay tageen 500 oo qof ilaa 1000 qof baa isu tagtay waxay go'aansadeen sida mataqaanaa wararku ay sheegayaan ilaa 24 saac ee mataqaanaa waxa way hadda soo socota ama 74 saac gudahood inay suldaan ku doortaan suldaan inay ku doortaan beesha matalaya ahna midka rasmiga ah ee beeshu leedahay maadaama kii hore samanan qaliilan Aranjan ay siiyeen sharaftii ay ka qaadeen dadnimadii ay ka qaadeen dulli uu noqday odayaashii shirka waday ee qabanqaabadaas waday ee shala hadlay maanta waa meyd Aranjan halkaas dadka marinayaan waa inay tusayaan وكوا odayaashii mataqaanaa waxa weeye ayagoo shala hadlaya waad u jeedaan ilaahay ha u naxariisto waa dhintay ninkan وكواasa waa meyd maanta hadda waxay saaran yihiin saarada isbitaalka weyn ayay mataqaanaa waxa weeye ay saaran yihiin waa meyd Aranjan waxay leeyihiin al-shabaab baa qarxiyay waxaad ogaataan Soomaaliyay wax al-shabaab la yiraahdo inaysan jirin in ay jirto dad mataqaan dadka laaya oo qarxiya oo dadka danahooda ka hor yimaada mataqaanaa waxa weeye si dadban u dilaya inay al-shabaabta lagu sheegay inay taatahay waa inaad ogaataan al-shabaabtu wax lagu shaqaysto weeye al-shabaabtu waa wax laga soo create gareeyo meesha la yiraahdo Kenya iyo ninka la yiraahdo Ismaaciil Umar Geelle iyo Hargeysa oo mataqaanaa bayska labaad u ah bayska saddexaadna mataqaanaa waxa uu mar hore inii sheegay Aranjan iyo meeshan mataqaanaa buuraha galgala boosaaso korkeeda degan yihiin waana wax lagu shaqaysto Aranjan ay ku shaqaystaan soo garanaysaan maanta waa meyd mataqaanaa odayaashii iyo waxgaradkii Dubays ee dadnimada reer Puntland mataqaanaa cidda kaliya marka laga reebo beesha dhexe ama beesha Maxamuud Salmaan marka laga reebo cidda kaliya ee dadnimada ku jirtay ee hadli kartay جو أوران كرتي جو متقنا وحي أهاين بيشة متقنا دبيس بأهاين ميت كودا ما أنت لورا أنت ولا كله أما عرب صالح هالنقطة أما للكسة هالنقطة أما دولبهنتها هالنقطة أما علي السلمان هالنقطة أما الدشيش هالنقطة أما all قبيلة لك كلا واحد لي كرا أو جو أوران كرا متشرين واحد لي كرا بيئة أوران كرا متشرين أنا أقول هاللي بيشة إذا والله أنا بيني شيئين فهمت شيء يا هالكرسي على الدور تصدق كرسي على هين هالكرسي على الدور والله وبالله والله بين كوكو أرنيا waxa mataqaana bahadul bahanta meel la hajifada mataqaana ma kala qaani anu qabaylade bahadul bahanta waxa laga soo qaaday meesha la yiraahdo waxa laga soo hal kursi baa la doortay fiirsada waxa laga soo qaaday kursiga mudug baa laga lahaa kursiga mudug baa laga lahaa waxa laga soo qaaday meesha la yiraahdo qaardho baa bahadul bahanta u codeeyay laga soo qaada bahadul bahanta u codeysay ma hadli karaan odayaasha kursiga iska lahaa suldaanka yagii wuu joogaa asagoo indhiis shan yihiin oo ninkii uu siiyay oo sargaal ah oo general ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ahaan jiray oo dalka mataqaana u soo dhintay oo u soo dhaawacmay oo intaas oo xabood jirkiisa ku jiraan oo bilad geesiyaal haysta baa la rabaa kursiga in la siiyo oo la yiraahdo la qaato kursiga ha qaato waa shaale la kursiga ha qaato waa loo daayay waxa laga soo qaaday wiil yar ba waxa laga soo qaaday qardho oo abti u yahay ninka la hadani waxa weeye waxa la yiri bahadul baanta waxa laga soo qaaday qardho u codeey baa la yiri halka kama hadli karaan ma hadli karo iyo jama dhigi karaan xaniyaha laga siibay dadnimo ay ku hadlaan iyo raganimo ay ku hadlaan iyo waxa ay doonayaan iyo xuquuqdooda ay yiraahdaan waranaga waa nala dulminaya kaliya xitaa waranaga dulmi ma aqbalayno war wax iyaga lama qaadan karo warna lama boobi karo raganimo ay ku yiraahdaan xitaa mal car hadla way ninka garoowe iska daba kameeraysanaya iyo gaalkacyo iyo qardho iyo boosaase arbi aa ka dhax soo garanaysaan anigu runta sheegaya laakiin nimanka Dubays laan dheer qalab ay noqdeen way iska diideen mataqaana waxa way in lagu tunto in lagu baashaalo in power abuse intii hore ka badan lagu sameeyo way iska diideen hadda ka hor waxaan ognahay dooba daarood asagoo gudoomiyaha baarlamaanka ah in inta mataqaana meydkeeda la waray ciidankii iyo staafkii waardeynay in la yiri Malaysia beeleed bay ahaayeen argagixisay ahaayeen tuugay ahaayeen inta la yiri meydkoodii yaala in lagu dulcodeeyay way ogtihiin maantana waa u jeeda waa cidda kaliya hadli kartaa waxa kale waa iska dhinteen waxa kale wax mataqaana dadnimo ku jirto hadli kara ma ahan meydkoodii maanta la waray Aranjan kuwaasa Aranjan facekooda iyo wajigooda runta ah power abuse baa Puntland ka jira dadkii waa baaba'ay dad ma noola qofkii hadlana xabadda mataqaana madax looga dhufanaya ama waa la isku qarxinayaa kii kalena mataqaana waxa la rabaa xuquuqdiisa in laga qaato dad gaajo loo dilo faqri loo dilo waxaan rabaa inaan la wadaago barnaamijkan wariyaha sheer gareeya wax runta aniga inii sheegaya in Allah la yastahi min al-haqi ninkii ugu jeclaanaya iyo qofkii ugu jeclaanaya kii ugu nacayo aday ku taala in Allah la yastahi min al-haqi idagaysta isbitaalka weynaa waxa la geeyay 17 qof mise 16 qof oo dhaawac ah baa la geeyay magaalada Boosaaso isbitaalka weynaa
والله إن بين ليني شيء والله فلان بقينا الله يحين فلان بو نحتاج أركا جودها أقلا صوص صويرة فيديو كصدوبة ها أقلادين أنت اسبتالك لا باش أنت جالا إلا صدوبه هداد أبها تتفلان بقى لقى فلان بقى ولا لقى هذا اسبتالك اللي هذا ناشنال ما تقنا وحوي كيا ماشي اللي هذا الأفردوتك سو قرن يسار البوساسود واسبتال بريفد أو ناشنال اللي هذا أفردوت كيا له halkaas dhaawici loo rara dhaawici halkaas la geeyay markii hal xabo oo falenba looga waayay isbitaalkii dhamaa ee Boosaaso ee dekada afka saa ugu hayay ee malaayiinta dollar dekada ay ka soo burqanayso wuxuu u jiraa 1 mile buu u jiraa 1 mile buu u jiraa hal falenba laga waayay hal falenba Aaron Charles reer Puntland ama saas ma taqaana dulliga u hogta ama dad noqdo wax iska dhiciya oo kor u istaago xuquuqdiina u dagaalama ورناو ضد ظلمية إن مليهن لكن حقوق دي إنه دجالما حقوق دي إنكو أدلادهن ما دجالمي كرتان ما كهل كرتان ما إسكعلين كرتان ورحقي لما قالن كرتان اسبتالكي ما تقعنا وحويه وفاروق قفكي تشوجه وكويدا هالكي همين والله $2 همين كي قفكي كويدا سريرته اسبتالك $20 ويا و$20 وبنت هاي هذين ماملكو way dhageysanayaan shacabku way dhageysanayaan arintan way dhageysanayaan haday beenta hay waa beenta soo dhahaya وبينتا صورها أنا أقول ماشى ما تشوجو لكن ضدك ابن حلالك ماشى تشوجا الدجان كرير بوساسو باوركنا لا سو وداغيا oo run sheegaya oo dad aan been iyo ma taqaalaab ahayn oo qof iyo laba iyo saddex aan hayne markaan hubino oo saddex qof ama laba qof ama afar qof haba intaan awoodna aan warka ka hubino umbaan ma taqaana warka anaga bulshada u siideena halkii hameyn waa $20 haddaad u baahatid inta lagu keeno faleenba in lagu ugu xiro dhakhtarku yiraahdo faleen baad u baahan tahay waxaas u baahan tahay waxaas lagu siiyo waa inaad farmashiyaasha ka soo horjeeda oo saa ugu heeraaraysan isbitaalka aad daawada ka soo gadatid reer Boosaaso ama reer Puntland وكواس أرنشان هالكاس إن الله ربان قفكي هذا واحد اللي هي الشباب واحد أورندونان الشباب باقرحيي بي أورندونان وكواس أضياش الشارع هذا اللي هي وكواس أميت كودي متقنا ما تو حسارية عدونا إن تفعلوا أرتاني إن كله رجع حسارية رجع إسبتال كوين بمتقنا أميت كودي ما أنت يلا إلهي هون حريستو إلهي هون حريستو دين كلام مجرد بوساسو إلا حلي يشري واحد كتير فوضى قصبة كتيرة مجرد واقع سنتهاي إركاسي مريسا waxaa soo socda ninkii la oran jiray mataqaana dani baa soo socda dani maanta qardu jooga inuu maanta galay ahayd magaalada Boosaaso laakiin ma garan karno waxa mataqaan safarkiisa dib u dhigay ayada lafteedu mataqaana waa calaamad su'aal inuu arrimahan iyo waxaan mataqaana waxa weeye la qorsheeyay oo la safarkaaga dib u dhigo waa dhici kartaa ila Allahu a'lam sida mataqaana wararka naga soo gaarayaan madaxtooyada inuu maanta Boosaaso joogay ahayd laakiin safarkiisa dib baa loo dhigay qardu jooga ما صار إيمان دونا يوم وسوقل دونا بوساس إلا بري عاوة بوساس ما سوقل دونا مس متقنا دني وحوي وبقي دونا قرنية ميليس سوق كان دونا إله بقول وحن كلام ربنا إن كهذلنا دور الشذا هراء جرو كذا عليه وحن أجنه وحن لقوا قبته حرادكم طريق أفراد حرم اللي تريح بالقول حقبته مدانا واحد لدونا يا ايربوركي باتنا متقنا لقد حدثين ايربورك لو دحقبتو ايربورك واحد دغن ciidanka متقنا بي ام بي اف la yiraahdo imaaraadku متقنا waxa weeye ay maamulaan oo imaaraadku ay leeyihiin ayaa waxa weeye متقنا ba haysta airborka waad la socotaan waad ogtihiin airborka nimankaas haysta marka gudiga doorashooyinku ilaa hadda kamaysan hadlin waa aamusan yihiin waxayna sheeganayaan gudi doorasho bay sheeganayaan sidee ku dhici kartaa dad mataqaana shacaba oo waxoodi dooranayo ayagu dadkay rabaan soo xulanaya illa yiraahdo xere ciidan baa mataqaana leeyna ku xareynaya xere ciidan baa leeyna geynaya safety ma ahan mataqaana awood uma lahan waxay rabaan kama samayn karaan qofkay rabaan ma dooran karaan waad u jeedaan dadkii hadlay oo yiri waranaw kursiga iyaga inaan madax banaanaan doonayna waranaw kursiga iyaga lama qaadan karo meydkoodii baa daadsan iyo hilbahoodii baa mataqaana Boosaaso caawa dhex daadsan waxaan leenahay gudiga doorashooyinku waad fashilanteen fashiluu baad noqoteen hadday noqoto kuwa deegaan doorashada mataqaana waxa weeye ay tahay ama localka ee Puntland kuwaas awal baan macna laga sameeyeen waa niman isku jufo ah waa niman isku beel ah waa niman mataqaana waxa weeye Aaron de meesha waa Aaron mataqaana meesha ay keensadeen waxaas awal baa cidna wax weydiineen cidna mataqaana aysan ka sugaynin cadaalad iyo maaragtay sinaan iyo inay mataqaana bini'aadantinimo iyo dhiig bini'aadan inuu ku jiro iyo human mataqaana inay yihiin awal baan laga maleynaynin waa waxa dadka laynaya oo mataqaana waxa weeye qofkii ka aragti duwan qaraxa u dhigaya ee dhiigooda waraya ee mataqaana waxa weeye sida mataqaana foosh dadka u leynaya weeye kuwaas awal baa waxba laga sugaynin meeye kuwii mataqaana heer federaal
meeyay mataqaanaa ninkii ra'iisul wasaaraha sheeganayay ra'iisul wasaare Roblow ma waxaad ka adag tahay oo kaliya reer xamar maad wax ka qabatid mataqaanaa waxa ka socda Boosaaso maad ka qabatid konton iyo afraad doorashada lagu qabanayo maad ka hadashid mataqaanaa waxa weeye dadka inta Axmed Madow basoor qoriga dhafoorka kaga hayo uu leeyahay kurid halka ma wax ka tiraahid iska daa reer xamarka waxaan arkayay odayaal kale oo saaka intaad xogaa lacag soo siisay aad tiri wixii hore beeniya been ma ahan maxaa been ah yaa maxaa la beenin karaa kursigii mataqaanaa beeshaasi ay lahayd inaan gabar mataqaanaa aan beeshaba la leeyahay xitaa ma ahan oo nin saacada uu qabo inaad siinaysid mashaki baa ku jira yay ka daahantaha waxaan ku idhi haddaad tiraahdo warka beeniya haddii kale ma soconayso wax kaa soconaya ma ahan waxaad ka adag tahay oo keliya dadka masaakiinta ah ka leexa masaakiinta faraha ka qaad haddaadan wax ka qaban karinin nimankaa mataqaanaa waxa weeye dalka baabi'inaya oo dadkii ka aragti duwaanada ee yidhi war waxaan xaq ma ahan sidaas mataqaanaa maydkooda u waraya waxaan rabaa inaan intaas uga gudbo Boosaaso Saciid Cabdullaahi Deni waa soo socdaa Saciid Cabdullaahi Deni iyo Boosaaso bal wixii kala qabsada baynu ogaan doonaa Saciid Cabdullaahi Deni iyo Boosaaso aba yaaro Saciid Cabdullaahi Deni Boosaaso nabad ma uga noqon doonaa Saciid Cabdullaahi Deni Boosaaso mid ka noqon doona ma yaha mise Boosaaso ku dhamaan doontaa mataqaanaa sheekadiisa ku soo aftirmi doontaa waa arki doonaa saacadaha soo socda iyo wixii mataqaanaa ka dhaca waxaan cambaaraynaynaa doorashada lagu qabanayo aeroboorka hala joojiyaan leenahay hala joojiyo doorashada am lagu qabanayo aeroboorka ha lagu qabto magaalada dadka waxgaradka ah iyo isimada iyo ganacsatada reer Boosaasodow doorashada idinka iskale xuquuqda idinka siinaysa institutionka saasa ku qoran qofna ha ka ogolaanina power abuse qofna ha ka ogolaanina yaan layna cabsi gelinin yaan layna handadin waxba mataqaanaa handadaad layna kaga qaadimayo qofkii markuu tiisi soo gasho ayuu dhimanayaa yaan ha u cabsanina aaranjan waa jabeen maalmihii u dambeeyay ku jiraan waxay marayaan dadkii shacabka ah inay isku qarxiyaan haddaad aragtay halkaas mataqaanaa maxay calaamad u tahay inay jabeen oo maalmihii u dambeeyay oo gabagabada ah ay ku jiraan ayay calaamad u tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin gudbiya naga soo mid noqo difaaca dalka ka soo mid noqo fadlan ku dhufta sheerta ku qabta sheerta follow page-ka inaad tahay gambalalku inuu kuu furan yahay hubi beledweyne aan dul tegaynaa beledweyne Ismaaciil Cumar Geelle waa inoo dambeeya Ismaaciil Cumar Geelle oo liis dheer loo soo gudbiyey Sacuudi Carabiya liis dheer oo maxaa ku qoran liiskaas waxaa ku qoran dadkii daacishta mataqaanaa u gudbin jiray dadka u gudbin jiray diyaaradaha droniska Djibouti fadhiyaan Djibouti way harsanayaan wasiiraa ku jira xildhibaanaa ku jira ganacsataa ku jirta dad shacabaa ku jira ciidan baa ku jira wabababa waa inii soo wadaa waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo beledweyne waa ka xunnahay runtii waxa ka dhacaya waxa ka dambeeya waxaas waa ognahay Rooble iyo mataqaanaa qarandumis iyo tiimka diidan mataqaanaa waxa weeye dadku inay xorriyadooda ku doortaan ayaa hawsha wada waxaan ognahay markuu imaanayay madaxweynihii Hirshabeelle Cali Guudlaawe wixii la okayto ra'iisul wasaare Rooble uu mataqaanaa ka maray wixii ay ka mareen mataqaanaa waxa weeye Sambaloolshe iyo tiimkiisa wixii ay ka mareen mataqaanaa waxa weeye wixii qaylo ka baxaysay wax allaale wixii qarandumis ahaa wixii qaylo ka baxaynay waa maqlaysay shacabkii baa laga argoosanayaa qaraxyadii laslahaa mataqaanaa Fahad Yaasin ha lagu qarxiyo ama Cali Guudlaawe ha lagu qarxiyo Cali Guudlaawe markii la waayay hoo bariiska ilaahay ha u naxariisto reer beledweynow waxaan leeyahay indhaha furta dad kursi raadinaya oo kursi doon ah oo mansab raadinaya yaysan mataqaanaa waxa weeye dadkiina iyo deegaankiina iyo nabadgelyadiina yaysan idinkaga ciyaarin ninka la yiraahdo Goodax Barre hadduu wax tarayo ama wax qabanayo shalay asaga dawladda ka mid ahaa hadda wuxuu ka sii maqan yahay mataqaanaa dhowr asbuuc buu sii maqan yahay ama dhowr bilood buu sii maqan yahay dhowr bilood ka hor wuxuu dhahayay dawladdaani waa dawladda kaliya ee caalamka ka jirta ee ugu wanaagsan maantana ayadii buu caayaya iska garo inuu yahay kursi doon iska garo inaad ka fakadid uma baahnid Sambaloolshe waa sidoo kale markuu dawladda u shaqaynayay dawladdu waa fiicnayd markuu meesha ka baxayna wuxuu yiri nin hawiya mar haduusan dawladda xukumaynin meesha mataqaanaa dawlad jiraysa ma jirto dawladda Soomaali baa iska leh hadalkaasi hadal nin uu ku hadlo ama qof dadnimo uu ku hadlo inuusan ahayn iska garo inuu yahay nin cadow u shaqaynaya oo markuu wax kala waayay raba inuu Soomaaliya qabiil iskugu diro hawiyo daarodo balaayo inuu yahay mid fashilmay oo cadow u raran oo balaayo mataqaanaa camiil u ah
iska garo waa haraadigi TPLF-ta waa sirdoonadii u shaqeynayay Ingiriiska oo wixii Imaaraadka u shaqeynayay oo wixii Kenyaatiga u shaqeynayay uf baa leeyay beledweyne nabad bay u baahan tahay horumar bay u baahan tahay maamul bay u baahan tahay kala dambeyn bay u baahan tahay wixii ka maqanna waxay u baahan tahay oo tabashacana wada hadal iyo fadhi iyo miis korki iyo qalin in lagu dhameeyo maya qarax maya shacabka oo la baabi'iyo oo la laayo oo dhibaato loo geysto waa ka soo horjeednaa waa diidnay reer beledweynow hawshiina si fiican baynu kugu socotaa ammaankiina adkaysta sambaloolshe iyo kuwa la midka waxba iniinma hayaan waxba iniinma soo wadaan waxay rabaan inay meel ay madax furasho mataqaana u haystaan aad noqotaan oo ay ku adeegtaan oo ay yiraahdaan kursigan ku fadhiya kursiga markii laga qaadanay ninkaynu ku soo ordayaan kaca dagaalama oo maxaan dagaalamayna hada kursi waaye maxay dhibaatada jirta maxay tahay hada kursi weydid ma dagaalamayna hada adigu kursi weydid ma ina dagaalanaa maya aqligu ha shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad Fahad Yaasiin waa loo yahay Fahad Yaasiin maanta wuu gaaray meesha mataqaana wuu joogaa Fahad Yaasiin mataqaana waa deegaankiisii Soomaaliya dhanba wuxuu u yahay mataqaana nin haliyay ah ilaahay mataqaana ha xifdiyo Allah barakeeyo Fahad Yaasiin Soomaaliya dhanba garab taagan annaga jecel inagoo dhanba dhinac taagan ilaahayna wuu jecel yahayo marka dalkaaga iyo dadkaaga si daacad ugu shaqeynaysid oo cadawga mataqaana aad gacmaha ka qabanaysid waa cadawga hadda aragtay Fahad Yaasiin wax weeraraya waa cadawga kuwa ku soo adeegsanayaan weeye cadawgu toos uguma iman karaan gantaal intay ku soo tuuraan mataqaana uma iman karaan waxay u adeegsanayaan kuwa inaga ah waa maamadii qaylinaysay oo kale oo gabar baa iga maqan gabadhaadi meesha joogta waad ogtahay gabadhaasuna ma maqna hadalka iga qora hadday gabadha maqan tahayna intii uu roob la tagay Bambaasa kadib bay dhimatay haddii ay arrintaas saas ahaan weydo fiidiyowgan mustaqbalka mataqaana cidii iga dambayso insha Allah dadka dhalinyarada iyo kuwa mataqaana dhalan doono hadalka dhageysta roob la intuu Bambaasa tagay kadib ay gabadhaasi dhimatay hadday dhimatay haddii kalena waa nooshaha maamadana gabar kama maqna waa u jeednaa inaysan gabar kaa maqnayn annaga ma nihin waa ku jeednaa waxa kugu jiro dhan feerahaga naga xiga maamo marka raalli ah marna inaan anaga maamo ku fogaano maamo inaan la hadalno oo mataqaana dumarka aanu wax way ku garaacna ma jecelin fariiso waad fariisan doontaa lagu fariisin doonaa insha Allah adigana Allah ku fariisiyo Ismaaciil Cumar Geelaan u galaya reer beledweyne Ilaahay ha u naxariisto walaalihii dhintay iyo meel walbaba waxaan rabaa inaan idhaahdo odaga Ismaaciil Cumar Geelaan horta saan idin sheegay leys dheer baa Sacuudiga u soo gudbiyay cirkay ku tahay cirka odagii cirka leys dheer baa loo soo gudbiyayo Daacish ma arkaysan diyaarada lagu qabtay Muqdisho ma ogeydeen haaye ogaada raggaani waa raggii Xasan Sheekh Shariif la shaqaysan jiray oo dawladdii hore halkaas u galay dawladda Cabdulaziz hogaaminayay waa isku team waxa la yiraahdaa oo hoostaga odaga mataqaana Ismaaciil Cumar Geelaan bahalladu halkaas ka socdeen Djibouti baa la keeni jiray Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo meelahaas lagu daldali jiray ku daldala anu arrintaas aad uga soo horjeedeen laakiin waa inta jirta war ahaan baa inay siinaya inay ku daldalaan oo Sacuudiga iyo Imaaraadka dhulka la geliyo anigu waa taageersanaha haddii Sacuudi iyo Imaaraad iyo Qatar iyo Kuwait la waayo dalkeenu nabad buu noqonayaa shidaalkeenu soo baxaya ogaada reer galbeedku marka ina dhibayaan iyo Faransiis iyo Ingiriis iyo kuwa la midka iyo kulgood ina dhibayaan cidda ay noo isticmaalayaan iyo dhaqaalaha inoo isticmaalayaan waa khaliijka dhaqaalaha khaliijka weeye marka anigu kuwaas haddii la yiraahdo meesha laga saaro oo Iiraan ha iska qabsato wallahi billahi tallahi sif amal ugu ducayn lahayn Iiraan qabso ilaahay baan ku barina inaad qabsatid qabso laakiin warka jira wuxuu yahay yaa anu kama soo horjeedo in Sacuudi iyo Imaaraad iyo Kuwait maca ku dar iyo Qatar maca ku dar dhulka la geliyo ka baxa meesha oo lacagtooda xunta ay shaqaladooda la awdo oo la baabi'iyo aad baan u taageersanahay leeyahay maxaa yeelay 30 sano shidaalka iyo dhaqaalaha nala ku dhibaya dalkeena hooyooyinkayga bacaha ku jira oo qaraxyadu ku dul socdaan lacagta meesha ka imaanayso mataqaana waa khaliijka weeye waa inaad fahmi kartaan laakiin warka jira wuxuu yahay halkan bahash waa ka socotay Ismaaciil Cumar Geelle haddaad Daacish maqashaan haddaad Al-Shabaab maqashaan haddaad Xuutiyiin maqashaan meesha ay saldhigga u yihiin oo saldhigga u ah oo laga sabalay garay mataqaana dhaqaalahooda iyo waxa weeye diyaaradaha droniska iyo saraakiishooda iyo wax walba saas loogu kala diro waa Djibouti noqota Ismaaciil Cumar Geelle maanta xaaladdu waa ku xun tahay waa aad bay ugu adag tahay Sacuudiga arrintii sirdoonki waa la ogaaday waxbaa la fashiliyay meeshan Yurub iyo NATO iyo Warsa iyo China iyo balaayo dhan baa ishuwan moogtahay 950 mataqaana kun oo sirdoonno iyo balaayo dhan baa meesha mataqaan wada fadhida marka Ismaaciil Cumar Geelle
سودة ولا استعمالية وبيس يا متقنا كول بكس الاستعمالية وياه وحاني مالك على بالجوضة وركي يعني إنه كده علينا وحليس ككتشر أو إيسو حقيقي نينك مجلسي ولا وكحمها مجلسي أنا متقنا وحوي أنا سف عنه هينين لكن وانين حلبان وهالكنين واحد شفت موقتها داد يمن أو يمن كسر كذا أصل كود أو جبوتي دجن سو ما قال بيسمع والله هي جبوتي وركاس سو مشرو هل نبى كتشر حلبان هل كين نبى كتشره dadka liiska ma taqaan ku jira waxa ku jira wasiiro iyo wasiir ku xigeen taliyaal ciidan baa ku jira dad badan oo reer Djibouti ah liiska ma taqaan ku jira dadkaasna maxay ahaayeen waxa isticmaali jiray awal Ismaaciil Umar Geelle saaxiibadiis weeye asaga isticmaali jiray oo wax walba sameyn jiray oo wax walba ma taqaan u hagaajin jiray oo oranka shaqada u diri jiray markii maanta xagga lagu ogaado arrintii inay fashilantay la ogaaday ayagii buu qabta inuu qabto raba qaar waa la qabtay waxa ku jira taliyihii booliska waa la hayaa wad ogtihiin تليه بوليس جبوتي إنه حريه هو أكتين سكر باكو كعدي ديكر باكو دعي مركز مركز حرسي قال دقي نخ واسبري نفوي نفير باكو شفته ورك واحد شيء يعني حالي ميد نايت كي يميا إن لقى صاري أو ما تقانا وحوي حافظ دي سيبا مسوي حافظ كلا لكاني أيا وركو شيء يعني سكر لسان وتي قدام بيسي أو سكرها ما تقانا كوك عسري ديكر ولمن ربا وما قال دون تعمل دول أنت دي تربوها ماشي هذا وطبعا بالجري ورك واحد لو عدي حالي ميد نايت ميا إن لقى صاري oo waxa weeye meel xaafad la keenay xaafadii hore aan ahayn xaafad saayne guri kale la geeyay oo xogaa lagu baxnaanayo bal dhaqaatiir iyo wax ay dul taagan yihiin waa gacantii midig ee ninka leh Ismaaciil Umar Geelle oo ahaa ninka ma taqaana waxa weeye Cabdullaahi baa la yiraahdaa Cabdi Cabdullaahi taliyih booliska waa gacantii midig ee ma taqaana waxa weeye ninka leh Ismaaciil Umar Geelle sirtaa ma taqaana fakatay waxba la ogaaday waxa la sheegay meelo badan inay ma taqaana waxa weeye ay sirar iyo waxyaalaan hawsha halkaas ka socotaa al-shabaab dhageysta halkaan ka soo baxaan جبوتي سومران هرجيسي سومران وحيسان أمران متقنا بورها ماشان اللي هذا إيش إن مجالنا اللي هذا هل كان قلقلي تاجين هل كان بكسعدان واحد إحمران سومال لام بمران واحد إحمران متقنا إثيوبيا ملهاني كدوسان واحد مران لا واحد تجان ماشي اللي هل كان واحد فيرفير هل كان متقاس كجلان أنت مران حيبة هاي مران متقنا بريجي مران حيبته رعان لا هو بيه كدوسان هل كان متقن صومالي كجلان وأوجه أنا جوا بين من يشيجيو أنت إحمران وقلقلي كدقاقان جرو هوس كمران قال كعيه درع كمران على هذا يصير مران أكتوره وكوتشران وروركم مدنيها وحصلنا وحنا جسوا أبابلاه واحد شره من جنع صدقة ورير بوصاصات متقنا رير بطلان أنا هذا oo qaraabo la ah Ismaaciil Umar Geelle warkiisa insha Allah bari dambe bay soo dhamaanaysaa waa in la wadaagaya waxa qayb ka ah wararku sheegayaan ninka hormuud la yiraahdo inuu qayb ka yahay adeer waxaan iskama socdaan waxyi ma ahan waxani jin ma ahan samaawi hawa la socdo ma ahan waa dad bil aadan ee nool ee shaqaynaya ee saan in la hadlayo u hadlaya ee telefoon diraya ee gawaari raacaya ee lacag isticmaalaya ee xawaale tagaya ee meel lacag ka qaadanaya oo diyaarad raacaya waxa wax isku xiran weey waa dad shaqaynaya oo isku xiran oo global oo isku xiran weeye saldhigooda ugu weyn meesha uu yaalo oo mataqana Soomaaliya laga dhibaateeyana waa Djibouti waa Ismaaciil Umar Geelle waa saraakiishiisa waa sirdoonkiisa halkaas bay bahashu mataqaana wax bay ka soo shidan tahay haday dawladda Soomaaliya wax ka qaban karto iyo hadii kalaba waa inaad ogaataan Soomaaliya cidda ina dhibtay ee dhibaatada in ku haysa 30 sano ee qarax ad maqashay Sooba lagu dhamaaday Shaam ma lagu dhamaaday Shawmut ba lagu dhamaaday mataqaana waxa weeye xagga lagu dhamaaday maalin iyo habeen joogta meesha laga soo create gareeyo waa Ismaaciil Umar Geelle gurigiisa asagaana og wadamo shisheeyana waxa wata laakiin asoo sub contract buu qaatay meeshan mataqaana waxa la isticmaalo lacag buu ku qaataa iyo sida inuu u fududeeyo dadka mataqaana shaqada kala qabanaya arintaasina halkaas weeye walaashaan baan mataqaana waxa weeye bal hal mar aan ku qabanaya oo warar inoo haysa gobolka mataqaana waxa weeye Sanaag bal Sanaag ka xumahay biisay ka shahada soo wacay waa ka qaban waayay bal hal mar aan ku celiyo hal mar aan ku cisho magaaladii Boosaaso ahayd xaaladeedu waa bariga dhexe magaaladii Boosaaso ahayd cirkay maraysaa okay mashquul bay tahay ya magaaladii Boosaaso xaaladeedu waa bariga dhexe waxaan kala rabaa inaan idin sheego waa kan aan ka qabtay sug marka horta hadasha ayadii hallo assalaamu calaykum وعليكم السلام لبانو لايف باد كجرتا توس با لوgu dhageysanayaa ku soo dhawow waxa weeye walaalkay waxa weeye intii dhimatay oo Boosaaso ku dhimatay
إلهي هؤون حريستو أنت دعوة على إلهي هؤون بوغدايو آمين أنت بلدوينة كل متينا إلهي هؤون حريستو أنت دعوة على إلهي هؤون بوغدايو مدى الصومالية دبعتها يستمقرت واسا وحوي التليفونات ويودسين دتك جاري وطال أو دبكتي ويدتي وحن ورثنا ولا نهاي أنا بدن بنشوفه أشياء وحلايا هاي دتك أنتي دقيسانيسا أو محيطي أما قبل كبري كسبان إلى محيطي كسبان شيء دبري إلى السنة إلى هاي لا وحلايا هاي أرتو وحوي وضدا وإن شرح الظاهر أو وضدا الحراء مدة كله waxa facebookya lagu soo qorqoraya ciidamada lagu soo tababaray meesha la yiraahdo maxay tahay imaaraadka baa soo dagaalgelaya danuu soo dagaalgelaya ciidamadaas ma jiraan ninku al-shabaab buu rabaa inuu ka dhigo ciidan uu meel u joogo oo soo tababartay dagaalkana soo geliyo xaqiiq way taasi aad iyo aad walaalay boosaas waa la hadlay dhowr qof oo kala gadisan dhaawac baa jira ilaa 16 qof sida la ii sheegay dhimashadu waa 4 sida aan mataqaanaa maqlay وأضياشي متقنا دبيس كهذا لي شري هذا لي هوتيل كي مقع لها متقنا كهذا لي إلهي هون حريص إسبتال كوينا داوعي إسبتال كوينا مركي لجيي هل فلان بقى ولا جوايي ولا قاضي ناشنال متقنا هوسبيتال أفردوت كويا لدينا عاس متقنا لوجب حمجارة لدينا